inta la hubo hal qof ayaa ku geeriyooday 9 kalena waa ay ku dhaawacmeen banaanbax saaka hiirtii waa bari ka bilaabmay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool banaanbaxayaashan ayaa waxa ay ka soo horjeedeen banaanbax la sheegay in ay soo abaabuleen maamulka Somaliland kaasi oo lagu diidanaa maamulka laga dhawaaqay magaalada Taleex dhawaantan iyadoo markaasna ay banaanbaxayaashan ahaayeen kuwa ka soo horjeeda banaanbaxan ka dhanka maamulka Khaatumo iyadoo markaasna ay isugu soo baxeen kumanaan qof oo ah dadka ku nool magaalada Laascaanood ciidamada militariga ayaa waxa ay u soo galeen gudaha magaalada si ay u kala didayaan dadka banaanbaxayaasha iyadoo markaasna ay ciidamadu ridayeen hubka noocyadiisa kala duwan kuwaasi oo sababay dhimashada hal qof iyo dhaawaca 9 ruux oo kale kuwaasi oo laga dayrinayo xaaladooda caafimaad isla markaana lagu dabiibayo isbitaalada ku yaala magaalada Laascaanood mar aanu la xiriirnay isbitaalada kala gadisanaya waxa ay ka gaabsadeen inay warbixin naga siiyaan khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay banaanbaxayaashan rasaasti la soo gaarsiiyay sidoo kalena maamulka iyo waliba mas'uuliyiinta heer gobol ay iyagu aan ka hadal dadkan la xasuuqay maanta oo markaas ay warbaahinta u diideen inay wax warbixin ka siiyaan anagu waxaan naysanaynaa ka yimi iyo buuban dama metelan anaga daani mayna anaga sibaan nahay waxaan isku niinaa shucuurteeda ku muujino kuna taageerno shirka wada tashiga ee magaalada taariikhiga marka labaad waxaan diidanahay oo dhaleecaynana oo ka dhalinay inaysan metelin dadka laga keenay gobolada kale ee doonaya inay ayuu ku muujiyaan iska dhiga kuwa Laascaanood ma aha kuwa dadka Laascaanood waxaan dhalinyarada sportiga waxaan qaban soo galay waxaan sheegayaa hargeysa fadhida oo 40 saac ku hadlaya laamida waxa la idinka baahnaa goobaha dagaalka laamida dalkana iskale Khaatumo guul Soomaaliya ha noolaad naga hargeysa ka soo buuqayana welcome mana aha markii u horeysay ee banaanbax kan la mid ah ka dhaco magaalada Laascaanood iyadoo markaasna ay ciidamada militariga gudaha u soo galaan gudaha kuwaasi oo rasaas ooda uga qaada dadka banaanbaxa wada banaanbaxayaashan ayaa waxay ahaayeen kuwa maanta ka duwan banaanbaxyadii ay hore u dhigi jireen iyadoo markaasna ciidamada Somaliland ay rasaas aan loo kala aabayeeleenin ooda kaga qaadeen dadkii banaanbaxayay isku soo wada duubo banaanbaxan ayaa waxa uu noqonayaa kii ugu ballaadhnaa ee ka dhaca abid magaalada Laascaanood kaasi oo ay soo abaabulaan bulshada qaybaheeda kala duwan maxamed cismaan cabdinuur telefishinka caalamiga Somali Channel magaalada Laascaanood